هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ صدقة وعجيب سر بدن باكو جرتا عافماد هدا دونيسو وحيابها لغو هلا صدقة وغو الرئيس مراد كلا هداد ليدهي وحيابها لغو هلا صدقة وغو الرئيس عبسيدا ما انت ادونك عام يا شيء وحيابها لغو بدبادي وغو بدن صدقة كوكا سن لي دبكو كبختيها اللوشيدا دبكا كالبابك صوتي البابكي سهل قراعو dad baa jira laga yaabo iyagoo dhulka u dhacay waxna inaanay ku weydiisanay sadaqadu waa cajiib sir badan baa ku jirta caafimaad hadaa doonayso waxyaabaha lagu helo sadaqa ugu horeysa muraad kale hadaad leedahay waxyaabaha lagu helo sadaqa ugu horeysa cabsida maanta adduunka caam yeeshay waxyaabaha lagaga badbaaday ugu badan sadaqa kowka ah nabigu waxa uu sallallahu alayhi wa sallam إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى صدقة هوس وحلو بحيوه يدو أضونك يا إلهي مو يعد كلاني أغي صدقة هوس وحلو بحينيوه عدد إلهي أي بختيسا وأي دمسا عذر رضا إيا عبسدو عدد إلهي بكدالتا وحلقو بختيانا وحاوغو مضان in waxa weeyaan beerka gaajoonaya ee bani aadamka karaamada leh inaad waxa weeyaan qoyso oo calooshaas maran aad buuxiso waa waxa ugu weyn naxariisu ku soo degto ilaahay hadduu ugu naxariistay aadamihiisii ay loo naxariistay ay oo gabadhii zaaniyada ahayd ee ayga waraabisay ilaahay ugu dambi dhaafay maxaad u malaynaysaa mu'min karaamaysan qofka calooshiisa buuxiye ee ka farxiyana maxaad u malaynaysaa ajar intee leeg buu ka heli karayaa ay baa lagu helay ajar iyo naxariis ah haddii lagu naar galay bisad qaraabkeediina laga xidhay waxna aan la siin sida xadiidka nabiga ku ansaxday qof bani aadam oo karaamo leh haddaad dhibtana cadaab intee leeg baa ka dhalanaysa axaadiida nabiga waxaa ku sugan mayeedhaankii iyo bahaa'imtii la xidhay ee la ciqaabayna waa lagu naar mutay xayawaanaadkii loo naxariistayna jannaa lagu galay aadamaha ilaahay karaameeyeyna haddii loo naxariisto darajo weyn iyo janno ayaa lagu helayaa ifkana ilaahay kurbada iyo dhibaatooyinku ku faydayaa wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifu wahuwa khayru raasiqiin wixii aad bixisaan wixii aad bixisaan ilaahay bedelkeeda ayuu idin siinayaa subxaanahu wa tacaala rasuulku sal alla alay slam wuxuu tilmaamay qof kasta maalinta aakhiro ee dadku aad u jilicsan yahay qof waliba in uu hadhsan doono sadaqadii uu adduunka la soo baxay hadhkeeda ilaa inta dadka la kala dareerinayo oo la kala xukumayo waxaa rasuulku tilmaamay sal allahu alayh wasalam sadaqadu ina sadaqa la tudficu can ahliha xara alqubuur sadaqadu waxay ka bakhtiisaa dadka qubuuraha ku jira kulka qabriga ku haysta ayaa ilaahay kaga qaboojiya wa innamaa yastadillu almu'minu yowma alqiyaama fii dilli sadaqatih qofka mu'minkaahi aakhira wuxuu harsanayaa sadaqadiisa hadhkeeda ilaahay wuxuu yidhi subxaanah wayas'aluunaka maadaa yunfiquun waxay ku weydiinayaan maxay bixiyaan maxaanu bixinaa bay ku su'aalayaan qul ilcafwa waxaad tidhaahdaa wixii maal baahidiinna ka dheeraadka ah bixiya haysaninoo dad badan oo baahan baa jira oo arrimo diin iyo arrimo duunyaba lagu qaban lahaa ayaa jira cataa iyo qataadaba waxay ku fasireen maa fadala can ilxaaja waa qofka baahidiisa wixii ka zaa'ida sadaqadu waxay bakhtiisaa buu nebigu yidhi sala allahu calayh waalihi wasalam tudfi'u alkhatii'a كما يطفئ الماء النار صدقاته سيدا بيها مركا دبكا لغو شو دبكا أبختيو أي قفكا دنبيجيسا صدقاته أبختيسايو إلهي وترتلا سبحانه وتعالى يفوح شذاها بأزكى العطور بذكر وشكر لرب قدير يفيض علينا بخير وفير
فنعمة الإسلام سر السرور